walaal ma hadsantahay runtii waxaan dareemay markii aan warka helay inay bulshada xaq u leedahay in la fahansiyo wixii sax ah markii hore runtii waxaan isla haday waxba ka soo qaadin laakiin markaan arkay abaabulka jira iyo keesku inuu ka wan yahay inaan ka aamuso waxaan dareemay bulshada xaq u leedahay sida wuxuu jiraan aan u sheego xaqayga horta arintan jirta nin baa wada ma aha arin dadka jiiraanka aan nahay ah nin baa abaabulaya oo runtii guriguri ugu qaraacay oo laha soo kaca ninkaas oo aan anaga Jumeer ahaan noo dhaweyn business la oo ganacsada naga fog gurigi sida uu sheegay warka wali 150 mitir buu noo jiraa sida aragteen Jumeera 3-4 wajahadood bay leedahay 3 kamid waa laami waxa xaafadu ku dhigsan ma jiraan hal koona ayuu reer kaga dhigsan yahay reerkaas oo ilaa hadda idla hadlaaya hal habeen oo cabasho ah aan soo gudbin waxa soo wada ognay xaq ah oo waajib ah qofku inuu jiiraanka xeeriyo dad muslimiin oo garan karnaa xaq uu leeyahay jiiraankaaga Jumeera inta adarkiisaan weeyaan waxa ku jira lacag aad u badan oo sound proof aan galiyay ah oo aan codku dibadda u bixin waana meel yar oo cod runtiisa uu sheegay u bixi kara ma aha sida aan sheegana 3 jihadood wax ka xigsan ma jiraan laakiin colaad uu ninkaas igu waday muddadii aan deganaa halkan oo aad 2 sano ku dhawaad ah taasoo eed badan iga soo gaadhay hadii aad aflagaado haday tahay cay haday tahay in hantideeda la burburiyo hanjabaadil tabagal wax walba aan ninka kala kulmay hadana markii hore laama amniga runtii la kaashaday waana leeyga meel mariyay waana leey dadaalay ninkaasina markuu arkay in laamihii amni aniga raacsan yihiin oo uu arkay wax u jawaabo ficilkan wado ayay runtii talaabadan qaaday taasoo uu abaabulay dhalinyaro badan oo xaafada oo uu sheegayo in isagu maalkiisa iyo xoogiisa uu ku fangareynayo oo xitaa hadii la xiro uu leeyahay ana idinka dambeeyo madaxweynaha idin hor fadhiisanaya taasoo sheegaysa inuu adeegsanayo awood gaara kuna hadlayo magac qabiil oo afka ku celcelinayo in aan u dhalan xaafadan aanay tahay inaan ka baxo dhalinyaradana ugu celcelinayay inay xaafada iyagu leeyihiin magac qabiilna u isticmaalayo taasoo runtii wax ka jira aan jirin qabiil yani ka jiraan inay qabiilku ku raacsan yahay arinka oo arin shakhsiya oo isagu wado laakiin aqligiisu inuu siinayo inuu dadka adeegsado waxaan xaafadan 4 sano deganahay wax dhibaato oo runtii ninka aan ahayn oo dadka neighborka naga ma iman laakiin ninkaasi magac qabiil ayuu ku hadlayaa anu reerna waan ka dhashay reerna waan u dhaxay laakiin waxa weeyaan in uu ogaado in aan waxani isaga ku koobantay xaafadan uu kicinaya gudi kala soo baxday ma kale ma ku hortagina arrinka isku ma raacsani dhalinyaro badan baa noo shaqeysa dhalinyaro badan baa xagga amniga iyo xaggan gudaha ka shaqeysa maalgelin baan sameeyay cashuur baan bixiyaa laysanka waxaan ka soo qaaday dawladda sifo sharci ah soo maray waxa weeyaan waxaan la mid ahay business kasto jira Hargeysa oo ganacsi ah oo madax banaan ayaan la mid ahay ma dareemay waxaan kaga duwanahay inuu jiro ganacsiyada jira ninkaasna runtii cadeymo badan baa lagu hayaa oo cod ah oo muuqaal ah oo ay kala xiriiri doontaan ama soo laamaha amniga gacanta ku hayaan marka cadeynahaas oo hadhow toole markii keesku dhinac u dhaco la soo bandhigi doono ayaa jirta way leeyahay hadiya dad mahadsantahay waxa jira marka waxyaabo adiga ganacsigaaga iyo naftaada khatar ku ah ilaa hadda aad la wadaagi kartaa ama horay aad ogaati kaaday dhinaca waxa aad badan xog badan baa horta waxa jirta in aniga leeyahay hanjabo oo leeygu hanjabo in business kan la soo galo dhalinyaro la abaabulay tiraba konton ah inay galaan oo loogu ballan qaaday in lacag la siinayo madaxweynaha la hor fadhiisanayo lagu badbaadinayo naftooda hadii la alla marka ay ahayd in gudida xaafadu soo sameeyaan mishinkii lagu soo galiyay Jumeera la adeegsana dhalinyaro marka la leeyahay baqina anaga idinka dambeeyna oo ilaa madaxweynaha idin geenayna taasoo runtii aan markii waxa aad u fool xun waqtiga maanta in lagu dhaqmo oo dhalinyarada aqligooda la xado oo sheeko qabiil ama sheeko in lagu kiciyo laba koox la kala dhexgeliyo maanta waxaan wada joognaa inay umad wada deganaato wada faraxdo la wada shaqeeyo businessku waa xor uu madax banaan yahay qabiil ma la cid ma yaqaan waxa isna waa ganacsade meherada inta ugu sameeyay in leeg baa lagu sameyn karaa laakiin waxaan anagu sheegaynaa inaan mar walba taageersanahay laamaha amniga oo wixii cabashay aan qabo mar walba u gudbinayay aniga nafteeda waa leeyahay jibay gawaadhi bay daba gasha guriga waa la jajabiyay gawaadhideeda waa la jajabiyay gudaha laftarkeeda adeegsi baa dhacay in dad lacag la soo siiyo oo la yiraahdo markaad meesha gashaan fal xun sameeya la socdo kii duubayay iyo kii gudbinayay mar walbana loo dan lahaa in meherada la ceebayo xag amniga waa laga galay inamada waa la laayay in ciidana jiro aad u dhaawacan oo aan la wadeegay arrimihiisa dawladda oo lagu dilay iyadoo lagu soo duulay u siri iga celi
markaa dhaawac la gaarsiiyey waxa kaloo jira caruur yar baan leeyahay guri baan deganeen caruurtaydii aanay nabad runtii aanan dareemin inay ku seexanayaan taasi mar walba tahay in qof la seexdo ama aan dadka haysto ama ciidan mar walba waayo hanjabaad telefoon hanjabaad dabagal mid cad oo dee la soo duubay intaba anoo dareensan runtii wuxuu inankaas u dalay in aan iraahdo waan ka guuray xaafadda taasina wax aqli gelisa ma aha oo la wada degay wadanka wala wada leey laakiin sida uu adeegsaday wuxuu wadanka xaafadda ma dhalan annakaale waana ka guuraysaa wax kasta uu qaadanayo maalkaygu ama xoogaygu ama dawlad awood waan isticmaalin xaafadda ka rido hadalkaas oo cadeyntiisa hayo oo ay waxaan afka ka leeyahay laamaha amniga aan soo bandhigay uu dhalinyarada ku leeyahay inuu inaga maaha oo qabiilo kale sheegayo uu leeyahay de faaxisha lagu sameeyaa faaxishadaas oo uga baahnay runtii cadeyn waxaan customerkayga ama dadka laamaha amniga aan codsanaya in ninka la dabagalo la ogaada xogtan uu hayo waxaan ka masuulaan ugu jameeray 3 mitir ee iga horeeya albaabkayga laakiin dhibaatadan uu sheegay uu leeyahay xaafadaha la galaa waan ka siman xumaanta in la wada joojiyo hadii uu khalad arkayay waxa ku waajibahay in uu qabto ninka sheegay waxa ku dhigsan hodeladaasna hodel de aroos lagu dhigo caadi ganacsatada ah ee businessyada laga ganacsaday caadiga waxa ii soo gudbiyay waxad gudub waayo hadii ay tahay music laga seexan waayo hodel kasto Hargeysa jira xaafad bu ku yaala hodel samada ka soo laalaada ama loo quntiinaan dad u digin u dhawin ma jiro hodel walba xaafad dhabarka ku haya waxa soo dhaafiyay hodelka deerku u dhaxeeyo hal deer baa u dhaxeeya ee ii soo gudbiyay aniga oo de aad uga fog oo xataa laaminoo dhaxeeyo xaafad inoo dhaxayso waxaan dareemayaa inay tahay runtii wax aad u khaldan oo aniga gaar u leeyahay adeegsanayo waliba uu ninkaasi wado oo aan ku celinayo aanay ahayn dadka xaafadda u dhameystiran dad isaga iyo intuu u wato eerika ku jiraan ugu dambeyntii maxay tahay fariinta dawladda bulshada iyo customerkaaga baad u dirayso maadaama eeda iyo hanjabaadaad sheegtay inay ku imanayaan maxay tahay fariinta aan u farayo mujtamaca horta waxa weeyaan mujtamaciga customerkayga meelay joogaan daafaha dunida waan salaamayna tunjimar waxaan u maleynayaa maanta uma baahna sharaxaad magacaan sameeyay waqti iyo time baa galay xaasinimaduna way jirtaa oo runtii waxay ka mid tahay guushay ka mid tahay qofka marka la xaasiday la daba galo waxaad ogaanaysaa qof guuleysatay tahay waxa weeyaan qofku wuxuu yahay baa qabtaa dad muslimiin nahay dad diin la baan nahay dad dhaqan la baan nahay akhlaaq la baan nahay waxa ugu eedeynayo waxaan ka codsanayaa laamaha amniga iyo mujtamaca ninka in uu cadeeyo oo hadii laygu helo iyo hadaan laygu helba midba abaalkiisa la mariyo ana ogaanaa laygu helin laakiin waxaan uga fadhiyaa laamaha amniga cadeyntiisa inuu keeno sida aanu waan hayo xog badan oo cadeyna marxaatiyaal evidence videoyo cod duuban oo shakhsi oo isag naftarkiisa hadlaayo dhamaan macaamiishada meel kasta joogan qofka wax kasta laga sheego iyo wax kasta la yiraahdo wuxuu yahay buu qofku yahay anagu mujtamacaan u shaqeynayna cashuur baanu bixinaa sifa sharci aanu ku furnay laysanaanu qaadanay hodelada kama duwani macsima sameeyno waxaan u maleynayaa hodelkaygu waa hodelka kaliya ee shuruuda sharcigu albaabka saaran tahay xeerka laga ogoliyo dariiska xeerka laga ogoliyo diinta taasoo keentay maadaama aanu bulshadu u adeegayno oo dad aad u badan noo imanayaan oo qurba jooga oo wadamada dibadda ka imanaya oo dhaqankii wax badan ka fahamsaneen inaan wacyi galino oo suurad ahaan iyadoo baan hayaa oo qofkii aan akhriyo karin Soomaaliga iyo kii akhrisanaya ee suurada markii aan qoraalka qoray waa laga gaarsiin waay shuruuda in la fahmo laakiin suuradaan soo dhignay in wax waliba mamnuuciyay khamriga sigaarka askarta la dagaalamo dharka qaawan wax alla wixii maandooriyaasha ciidanka in la dagaalamo wax walba aanu mamnuucnay oo suurada iyo quraan meherada koobaad ee Hargeysa taana waxaan ka dadaalay inaan Soomaaliland darad baan ahay wadankayga baan imin qofku markuu qurbaha joogo de kalar baa lagu cunsureedan karaa markuu carabtaan ku dhasho ku koray ingiriisna waa ka imin xagga Yurub la oran karaa waa kalar carabta waxa la oran karaa wadanka anaga lagu oran karaa muwaafid baatay se waxa nasiib darro ah nasiib xumo ah qof gurigiisii hooyo jooga dalkiisii jooga dadkiisii la jooga nabad iyo wanaag ku dhex degan oo qof adeegsanaya magac qabiil oo aan loo dhamayn kugu bahdilayo kuna tusaayo cunsuriyad una doonayo inuu kaaga saaro ganacsigaaga iyo businesskaaga taas oo noo adagahay waana marna uga baxayn magac qabiilna aanu ii isticmaali karin shakhsi xun weeyaan watana dad adeegsanaya dadka u adeegsanayana wadariyo waaxid iyo ma waalan de magaalada waa la badan yahay evidence kay soo dhigi doonaan waxa uu sheegay wax wari kama jiro ninkaasi personal attack oo qabiil ku dara ayuu wadaa marka ninkan aad ka cabanayso sabab taariikhda ku kaligiisa ganacsi isku mid ah ka dhaxeeyo saaraan hotelkaaga la leeyahay ninkan horta runtii videogii baan ka arkay cinku u eegyahayba arag hore nagama dhaxayn
kulan nagama dhaxayn ima waanin qofka bilaadanka khaladka markaad u sheegaysid horta waxa koow ah haddii uu cabashadaasiba sax tuulay waan ku seexan weyne waxa waajib in qofka kuu yimaado ku dhahdo waxaasan ka cabanaya wixii gala qabo adna aad wixii ka aqbasho ama ka diido haddii aad ka diido dee laama amniga u tegaysaa saldhigyaa jira dowlad baa jirta oo qofka cabashadiisa usoo gudbi doono waxa uu social media isagoona ii iman social mediada waa taage waa ceebeen iyo magac ka dil ninka laga hadlaayo weli social mediada ayaan ku ogaaday siduu eegyahay cid alla cid uu ahaa siduu eegyahay ma aqaano laakiin adeegsi badan iyo isaga yahay dee waa la socday wajigiisa se waxa igu dambeysay waxa igu horeysay maalinta aan arkay ganacsigiisu waa patrol anuu cuntiyo dee shah baan iibiyaa laba ganacsiyo runtii isku mid ma aha haddii aan soo geli lahaa patrolka wax baan odhan lahaa dee tartan baa jirayo oo xoogaa qofka suuqaad ku ciriirin kartaa laakiin wax hudheel ka saabsan iyo patrol lama arki karo haddii ay tahay diin oo ii adeegsanayo igu haysto dhaqan ama diin ama hab diineed waxa weeyaan hudheelay magaaladan la kamid ah koow wuxuu ka soo bilaabi lahaa ka ku dhagan arintana dee wuxuu nooga wada dhigi lahaa waan badanay hudheelada magaalada ka jira wuuna soo wada caami lahaa intaa uu yidhi waxay qaban lahayd hudheelada magaalada oo dhan ka jira weliba ku xigay isaga deerwa saasoon maqlayo inuu uuna isaga u tegin qabsan uuna la hadal laakiin aniga ii soo gudbay taasoo caddaynaysa inay qabiiltay runtii arrinkan sheegayaana wuuna bareeray waana la hayaa cadayntii laamaha amnigana waan la wadaagay toos ninkaasi wuxuu leeyahay inantu xaafadda male xaafaddana waynu ka rareynaa ciddaasaynu nahay waa inaynu 50 nin meesha gelinaa weliba 50 nin 8 aan la qaadi karin oo laga badan karin baynu gelinaa taasoo dee runtii isku daydil ah ama dee inay hantideeda jajabiyaan oo dhibaato ah nasiib wanaag dhallinyaradii baa caqliyeystay waxay idhahdeen inanta waxaa nagama qabato waanantayadii saasaan xogtan ku helay oo hawshii ay ku fashilantay anaga team Jumeerana la yiraahdaa team Jumeera waxa ka shaqeysa dhalinyarada xaafadda oo dhan waxaana ku doorbiday dhalinyarada xaafadda danku way ugu jirtaa oo runtii qofku intuu bas soo raacila dhalinyaradu ii dhawdo qofka xaafadda ii degan taani time buu iman kara boqolkiiba boqol dhalinyarada ka shaqeysa Jumeera waa ama laba guri ama saddex guri ama xaafadda inay tahay waxa kale oo jira dad badan oo aanu tababarno oo runtii diyaacada tahil ku sameeyno dad iska dhib badan oo aanu chance nolosha u siinay in ay ka shaqeeyaan Jumeera taasoo ku tababarno si ay fursad nololeed oo fiican u helaan waxaan team Jumeera u taaganay mar walba qabyaaladu inay naga mamnuuc tahay qofka laba qodob baa la isku yeeriyaa qolama tahay yacay iyo dagaal saddexda qodob baa la isku yeeriyaa qofku yiraahdaa xagaad ka soo jeedaa waa iga fasax ujeedada leeyahay in la wada shaqeeyo team la noqdo oo la isxog ogaado oo walaalana noqdo ayaan ku tababaraa qofka iga yaqaan ma jiro ma taageerno waana ka xumnahay waana murugo in maanta aniga meeshii leh in runtii qodobka uu ninkaas igu qaado oo dhan ma reer baa igu qaaday nin shakhsiya oo xumaan wada oo reer magaciisa adeegsanaya in uu dareensiyo waxa aad baan uga xumahay oo mahadsantiin